maanta wixii ka dambeeya markab aanay fasaxin dowladda Soomaaliya kuma xiran doono dekadaha berbera boosaaso ama kuwa kale ee dalka ku yaala haddii aad arkayseen maalmahan la soo dhaafay hadalhayntu inay ka taagneed e-visa iyo ETC iyo dhammaan adeegyadii kale ee la xiriiray xakamaynta dadka imaanaya Soomaaliya haddana waxaa bilowday xakamaynta maraakiibta imaanaya Soomaaliya waxa ay sidaan tayada cuntada ay sidaan in la socdo in la kontrolo iyo inay helaan fasax ay ku xiran karaan dekadahaasi inta markab la soo kireysto hadda kadib kuma xiran doono dekadahaas aan idin sheega maxaa cadeynaya arrintaas sida aad sawirkan u jeedaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa dhawaan heshiis gaaray dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa dhawaan gaaray heshiis lagu dhisayo laguna qalabeynayo xarunta qaran ee RMCC ee magaalada Muqdisho heshiiskaas oo dhawaan la saxiixay waxa ku jira qalabaynta iyo tababaridda shaqaalaha RMCC waxa ay awood u leedahay la socoshada maraakiibta maraya biyaha Soomaaliya waxa ay sidaan iyo haddii ay haystaan amar ah in dekadaha ay ku socdaan ay ku xirtaan haddii aanay haysanin amar ay ka haysanin dowladda Soomaaliya isla markaana aysan awood u leeyahay dekadahaas ku xirtaan laakiin markabku uu jibiyo amarka maxaa dhacaya RMCC malahan ciidamo ku howlgalo biyaha gudaheeda balse markabkii ka dhiga adeega waxa ay ku dacweyn kartaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan maraakiibta ee la yiraahdo UNCLUS iyo sidoo kale SAR Convention Somaliland oo iyadoo horey u diidaneed in ay dowladda Soomaaliya ay maamusho hawada ayaa hadda waxa ay la kulmaysaa caqabad kale oo ah in hadda kadib dekada berbera oo ah midka ugu weyn ee isticmaasho Somaliland in maraakiibta tagaya ay dhammaantood ay u baahan doonaan inay waraaqad ogolaansho ay ka haystaan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii aanay haysanin markabkaasi fasaxo ma tigi doono dekada berbera boosaaso hobyo iyo meel kasta oo dalka ka mid ah sida tan Muqdisho oo markii horeba fasax lagu imaan jira talaabadan ayaa loo arkaa mid si weyn dowladda Soomaaliyeed ay guul ugu ah maadaama la xakamayn doono in maraakiib aan ahayn kuwa xamuulka intay soo galaan biyaha Soomaaliya inay ka sameystaan kalluumaysi sharci darro ah markab kasta oo biyaha Soomaaliya soo geliya cagta waxa isla markiiba u fudud RMCC inay aragto markabkaas iyo nuuciisa iyo dalka laga leeyahay intaba iyo faahfaahinta dhammaan maraakiibtaasi heshiiskan oo ka dhacay Muqdisho midowga Yurub waxa uu tababari doonaa shaqaalihii ku howlgeli lahaa adeegan kaas oo ah mid casri ah oo dowladda Soomaaliya ay yeelanayso waa talaabo weyn oo qaranka Soomaaliya oo muddo fog dib u dhacyo iyo dowlad xumo ay ragaadiyeen in hadda uu helayo dhammaan adeegyada dowladeed ee dunida ka jira ma jiro dal biyihiisa la iska maro ama maraakiib ay isaga xirtaan dekadihiisa kuwaas oo aan la ogeyn nooca ay yihiin iyo waxa ay sidaan intaba tanina waa talaabo kale oo dowladnimada Soomaaliya kor u qaadaysa